Welcome to our YouTube channel, Somali Tutorials. If you're new here, we encourage you to subscribe to our channel and turn on notifications so you never miss a new video. And if you enjoy our content, please give our videos a thumbs up and share them with your friends. Thank you for choosing to spend your time with us. We hope you find our channel valuable, and we look forward to seeing you in the comments. Regards, Somali Tutorials. السلام عليكم صاحبيال كسو دواada janaalka Somali Tutorials fadlan janaalka hadii aad ku cusub tahay subscribe inoo saar sidoo kalena muuqaalka inoo la galay hadii aad hore inoo la joogtayna waxaan ku leeyahay mar labaad soo dhawow طبعا labadii isbuuc u dambeysay waan yar mashquulsanaa muuqaal maanan soo gelin hal muuqaal waxa jira AI ah markaas aan gacan ku sameeyay oo aan cod soo duubin طبعا muuqaalkaas waxaan ku soo xusay in markaas hadii aad rabtaan muuqaal noocaas inaad barataan ama si loo sameeyo inkastoo maalmahan dambe laga bilaabo wixii ka dambeysay November December ilaa sanadka cusub AI animation oo hawada u qabsaday oo markaas qof walba AI animation uu isticmaalo طبعا Soomaalideena aad markaas TikTok-gana ku aragtaan laga yaabaa ama Facebook ama YouTube-ka meel badan طبعا waxa laga yaabaa inaan wili arag ama qof soo gudbiyo si loo sameeyo ama markaas qaab professional ah طبعا إن شاء الله muuqaalkeena maanta taasan ku falanqeyn doonaa intaan muuqaalku guda gelin ugu horeen waxaan leeyahay hambaliyo asxaabta ku xiran Somali Tutorials waxaan gaarnay ama aan read gareynay 500 subscribers aad iyo aad aan kaaga mahadcelinaa saaxiibada halkan ku xiran iyo saaxiibada halkan aynu ku wada midownay iyo saaxiibada halkan markaas aan wax ku kala faa'iidno dhamaantiin aad iyo aad aan kaaga mahadcelinaa idinka oo sabab ah in markaa heerka aan soo gaarin maanta intaan in ka badanna waa wada rajaynaynaa insha Allah طبعا ساعات كهر waxaan soo galiyay muuqaalkaas oo markaas gacan ku sameys ah oo statuska history-gan soo galiyay ama shorts ka soo taqaanid video toos ama ahan waa kaliya 30 second meelaas ilaa 20 second soo marka muuqaalkaas waxa ku sameeyay markaas 500 hambal iyo xal noocaas ah marka muuqaalkeena wuxuu quseeyaa sida muuqaalkan loo sameeyo amal dabcan waxa jiro dad wili muuqaalka hore aan daawanin oo dabcan muuqaalka inay muuqaalku horeysay ay laga yaabo طبعا muuqaalka hadii aan ku tuso waa kan soo jeedo sida halkan aad ugu jeedo dabcan Somali Tutorials congratulations 500 subscribers happy celebration magacayga waa Daadir Ahmed waxaan halkan hambalyo uga dirayaa saaxiibkay Somali Tutorials iyo saaxiibada ku xiran hambalyo 500 subscribers magacayga waa Fatima waxaan halkan hambalyo uga dirayaa walaalkay Somali Tutorials iyo walaalaha ku xiran hambalyo 500 subscribers hambalyo Somali Tutorials intaan iyo in ka badan waan ku rajaynayaa insha Allah Somali Tutorials congratulations 500 subscribers happy celebration soo marka muuqaalkan amal si aan u sameeysan lahayn ayaan isla gudageli doonaa insha Allah hadii ay tahay booqashada kuugu horeysay ee aad soo booqato Somali Tutorials dabcan waxaad imaadaa playlist-ga kadibna inta mowduucyo kala duwan inta ku soo gudbinaa kuwa kale oo wali aanan bilaabin way jiraan hadii markaas website loo dhiso aad rabto inaad barato si free ah course ayaan kaaga diyaariyay kaas oo qaybtan playlist-ga ku jira ay ku qoran tahay blogger insha Allah waxaad awoodi doontaa si professional ah inaad u sameysato gacantaadana aad maasho hadii aad doonayso wax professional oo diyaarsan waan ku sameyn doonaa insha Allah waad la soo xiriiri kartaa qaybteena description-ka ama comment-ga aad ka heli doontaa WhatsApp-keena ama Telegram-keena dabcan sidoo kale ChatGPT hadii aad u baahan tahay aad arday tahay ama markaas qoraa aad tahay ama wax kalaba uu ku anfacaya insha Allah hadii aad u baahan tahay inaad sameysato isna waxaan ka diyaariyay dhowr video dabcan hadii website aad leedahay ama hore lagu soo sameeyay ama aad sameystane halkan waxa ka heli doontaa sida traffic loo helo free ah oo markaas professional ah muuqaal kale oo soo wada ilaa iyo dhowr bartay aan uga dhiman SEO-ga oo soo socda insha Allah dabcan qaybtan waa muuqaalada dhamaan Somali Tutorials oo markaas playlist-ga aan ku xareeyay hadii aan ka gudubno marka maanta dabcan muuqaalkeena waxaanu ku baran doonaa maanta qaabkan u jeedo soo marka run ahaantii waxa jirta TikTok inta badan aad ku aragteen horta muuqaalka waxaan kugu barayaa 3 option oo waxaan loo sameeyo dabcan waxa laga yaabaa hal option in aragtay hadii aan ku tuso dabcan sawiradan inta ku jiro dabcan sawiradan waxa laga yaabaa in TikTok kaaga hor imaadeen dadka inta badan waxay isticmaalaan waxay tahay sawirkan iyo kan labadan ba ark inta badan marka si dadka waxay la imaanayaan wax ka duwan aad u la imaado
ka qurux badan ka professionalsan ka sawir nidaamsan oo runaantii qofka markuu arko oo isdheheenin yacni waxaana AI ah ama animation ama gacan ku sameys ah oo runaantii qof run ah loo malayo dabcan muuqaalka haddii aad rabto in wax professional ah kuwan aan soo sameeyay shortiskayga ama haddii aad rabto waad nala joogi kartaa haddii aad rabto insha Allah sida loo sameeyo kriine qaybta hore ayaa daawo doontaa insha Allah muuqaalkan waxaan u kala qaadi doonaa 3 party party 1 application kan ama website kan oo la yiraahdo didstudio.com oo waxyaalahan AI animationka lagu sameeyo qaabka la iskaga diiwaan geliyo waa party 1 party 2 waxaynu ku qaadan doonaa qaabkan dadku ay ku wada caan bixeen qof walbana uu bartay oo kala ah in marka sawiradan meesha ku jira dabcan kan iyo kan ilaa iyo saddexdan koro ana soo geliyay application kan ayuu ka bilaabanayaa ilaa iyo wixii ka hooseeyo dabcan sawiradan application-ka uu ku siinayo iyo sawir qof Soomaali ah sida loo sameeyo oo dadka Soomaalida ay yaqaaniin inaad barato waa party 2 party 3 waxaynu ka dhigi doonaa sida marka sawiradan professionalka ah loo sameeyo dabcan sawir aan dad ka soo qaada ma ahan sawir aan markaas yacni aan dad profile-kooda aan kala soo degamaa waa sawir markaas boot aan u darsaday bootkaas si loo sameeyo iyo si loo matacaamulo oo sawirada loogu darsado haddii aad rabto inaad barato oo waxay dadka keensanayaan wax ka duwan inaad la imaado haddii aad rabto waad nala joogi kartaa dabcan baartiga aad u baahan tahay ayaa daawo doontaa muuqaalka waxaan u yeeli doonaa chapters part 1 oo ah si loo sameeyo haddii aad rabto kaliya sameyso iska bax part 2 ah sida sawiradan loo sameeyo meesha ku jiro oo looga hadashiyo ama sawiro qof Soomaali uu leeyahay iyo part 3 oo ah si bood loo sameysto boodkaas loola matacaamulo boodkaas sawir loogu darsado si loogu soo degsado iyo si loo nashqadeeyo dhammaan insha Allah muuqaalkan wax walba oo AI ah oo laga qariyay ayaan kuugu falanqeyn doonaa marka laga hadlayo AI ama didstudio.com dabcan muuqaalkeena aynu guda galno waxaynu ka bilaabi doonaa sida loo sameysto dabcan hadda ciwaanka wuu sameysan yahay sharaxaad yar haddii aan ka siiyo waa meesha fiidiyoyaasha laga sameeyo intan waa video library qaabka fiidiyoyaasha SMS ay ku jiraan dabcan intaan ku sameeyay shalay waana markaa shortska markaan diyaarinay dabcan halkan waxaa ku qoran sida u jeedo 14 credits dabcan muuqaalka yani gmailka markaa ku soo sameysato wuxuu ku siinaa 20 credits 20 kaas waxaa ku sameyn kartaa fiidiyowga tayadiisa ku xiran hadda fiidiyoyaashan 20 la si 6 ka isticmaalay dabcan 5 video inta ku jirto 29 second 10 second 10 second laga yaabay hal video oo 4 daqiiqo ah daarad inaad sameysato ama 5 daqiiqo ah 20 waa bixisa daqiiqadaha aad sameysanaysa ku xirantaa marka insha Allah waxaan isla guduguli doonaa sida aan u sameysan lahayn dabcan hadda gmail cusub aan soo furtay oo waxa markaas ahay personal ama user cusub ila jaanqaad oo yaanan ka tigin first waxa sameynaysaa searching ayaa tagi doontaa searching marka tagto waxaad qori doontaa d calaamadan ayaa ku xiji doontaa dabcan soo qabanayo sida u jeedo DID studio ina hore ugu sameysaa oo malana laakiin waan xaqiiji doonaa insha Allah dabcan haddii aan hore ugu sameysana mid cusub ayaan ku sameyn doonaa dabcan hore uma sameysan cafan marka waxaa sameynaysaa dashboardkana ku soo bixi doono haddii telefoon aad isticmaalayso iyo haddii aad computer isticmaalayso kaliya marka telefoon isticmaalayso waxa u baahan tahay 3 dhibic inaad taabato kadibna marka aad desktop site ka dhigato si ay kugu soo baxaan waxyaalahan halkan ku qarsan dabcan marka desktop ka dhigato haddii telefoon isticmaalayso haddii computer aad isticmaalayso san oo kugu soo baxo waxa taaban doontaa qaybtan ama calaamadan ama falaartan ay ku qoran tahay guest ee hoos u jeedo kadibna waxa ka dooran doontaa login ama sign up dabcan wuxuu ku geey doonaa meesha markaas laga cafan hore u isticmaalsa u jeedo waa 0 credits marka gmail cusub soo furdo insha Allah cafan meelana kana soo furdo insha Allah marka waxa sameey doontaa meeshan waxa ku soo qori doontaa DID isa hore kaaga soo qabanaa waa website yani markaas hadda hawada soo gala dadka dhan waxay soo searching gareeyaan dabcan yani Google-ku ka soo muuqana hada qorto iyo calaamada siriska hore ku soo buuda marka sida wada ognahay meesha markaas la imaano waxa dooran doontaa login ama sign up dabcan login iyo sign up marka doorato waxa ku soo bixi doono dashboardkan markuu ku soo baxo you have two options labada option ay haysataa waxay tahay inaad sign up dhahdo ama magacaaga emailkaaga iyo passwordkaaga aad geliso xogtaada iyo inaad markaas Google-ka aad ku xirto dabcan labadaas option midku ku fudud adiga garanaa ani kana i fudud kaliya inta ayaan taabanaya automatically isaga isku xiri doono
dabcan hadda sida ujeedo waxaan soo galnay gudaha DID ama DID studio waxaana la siiyay 20 kadib si dashboardkan uu kugu soo baxo waa inaad desktop ka dhigtaa aan ku xasuusiyo hadda marka waa inaan guda galnaa hawsheena dabcan waxaad tagaysaa create video markaad tagto dabcan kan saad u jeedo iyo kii hore isma lahan kan saad u jeedo kaliya ninkan oo ka bilaabaa inta ku dhamaadaa wax kale ma haysatid kii hore markaas aan isticmaalayna saa u jeedo waxyaalo badan aan inta ku sameeysan afwan cancel kan kii horena waa kana yani sawiradan meesha ku jiro saa u jeedo oo markaas aan sawir aan soo galiya insha Allah gadaal ayaan ka tusi doonaa si sawiradan loola mutacaamulo ama loo helo marka muuqaalkan waa inaan ku sii soconaa first waxa sameynaysaa qalinkan taabanaysaa hadii aad rabto muuqaalka aad sameynayso inaa magaca u yeesho magaca ayaa ku qoran doontaa secondly one waxay tahay horta si loo sameeyo waa asla baranay oo hadda baarto ayaan bilaawnaa si sawiradan yani loo mutacaamulo ama loo sameeyo sida loo sameeyo waan ka soo gudubno waa very simple kaliya Gmail ku xiraysaa website magaciisana waan ku soo sheegay korna uu ku xusin yahay dabcan saa u jeedo marka waxaynu dooran doonaa first kan aan dooran doonaa kan marka doorano waa nashqadeyn kartaa hadii aad rabto background-ka cadaanka waa bedeli kartaa oo color ka rabto ayaa ka dhigi kartaa dabcan hadaa rabto blue ka dhigi kartaa hadaa rabto waxa ka dhigi kartaa gaduud nooc rabto dabcan hadda aan blue aan ka dhigayaa secondly one size ka waa bedeli kartaa square iyo vertical iyo waxa ka dhigi kartaa white kan dabcan hadii TikTok iyo waxyaalahaas awrato sidaan ka dhigi kartaa hadii markaas YouTube awrato ama wax kale awratana sidaan ka dhigi kartaa dabcan sida markaas aad aragto inaga waxayna ka dhigaynaa kana ku dhaafayna marka qaybtan aan ku sharaxo wax walba qofka inuu fahmo wanaagsan Soomaan qaybta marka imaado idna laba option haysataa optionka koowaad in marka inta qoraal aad ku qorto kadibna Ingiriis ahaan oo kugu hadlo ama Soomaali aad ka doorato Soomaali ahaan oo kugu hadlo intana markaas nin iyo naag ka rabto aad ka doorato waa isla fahmin intaas qayb yaro waxaa jirta inta badan dadka aysan dadku u sheegin oo inta ku taalo oo qofka hadii markaas cod ina soo geli karto dabcan waxa aragtay shakhsi famous ah oo Soomaaliya TikTok jooga ama YouTube jooga oo hadal xigmad la ku hadlay simple waxa sameey kartaa video ga TikTok kala soo digi kartaa video marka TikTok kala soo degto musical hab ama yolahan kadib inta ayaa daawa doontaa oo audio kadibna upload ayaa si daawa doontaa ka bacdina video ga soo geli doontaa qofkaana markaas wuxuu ku hadli doonaa video gaas waxa uu sheegay hadii qofkaas qof oo caynayo hadii qofkaas qof uu amaanayo dabcan kana isla hadalkii ayuu ku hadli doonaa dabcan qaybta qoraal kaliya in aragtana laga yaabo laakiin codna uu leeyahay ogaada hadaba marka meeshan waxaynu ku qori doonaa qoraal yar qoraal marka si aan u qorno waxaad u baahan tahay in markaas waxa soo alifato ama qoraal aad leemaado ana hadda kama gaaro meeshan waxa ku qori doonaa xigmad basti ama maqaal ama article Google-ka la soo galiyay ayaan soo qaadi doonaa kadibna inta ayaa ku basti garay doonaa dabcan hadda website-kana number 1 ku jiro marka xigmad la soo eego oo daryeel ay ku qoran tahay waxa sameey doonaa insha Allah kan ayaan soo geli doonaa number 1 aan ka bilaabayaa ilaa iyo number 6 intaas ayaan maanta idin ku tusi doonaa markaan soo koobi gareeyo kadib waxaan ku soo laaban doonaa DID-gayga kadibna inta ayaan ku basti garay doonaa dabcan sida u jeedo meeshan waa English kana waa Soomaali isma qabanayaan si aad inta u bedesho hadii aad rabto falaartan ayaa furi kartaa falaarta safar kartaa wadana ka raadi kartaa hadii aad rabto inta ayaa dooran doontaa kadibna waxa ku qori doontaa SOM oo Soomaali ah kadib Soomaali markay ku soo baxdo inta waxa ku soo bixi doono Muuse ama Ubax dabcan labada magac computerka ku programiyay hadii Ubax aad doorato waa female oo cod naag ah waay hadii Muuse aad dooratana waa male oo cod nin ah dabcan waxaynu ku day doonaa Muuse inta ayna saf garanin si aan iskaga xaqiijino waa inaan inta taabnaa hal biyuhu waa waxa ugu jilicsan haddana waxay dilaaciyaan dhulka waxayna dhaqaajiyaan dhagxaan waxay dejin karaan markab tani waxay si cad ku tusaysaa mabda' ah in dabacsanaan degan okay marka inaad dhageysataa laga yaabaa codkan waa yar hooseeya marka hadhow waxaad sameyn doontaa markaad saf garaysato ayaa waxaa la tigi doontaa CapCut ama KMaster kadibna codka ayaa si balaari doontaa ama cod ku diri doontaa aan waxba kaama qaranayo wax kasto adigoo ka dharagsan oo step by step u daawaday ayaad inta ka digi doontaa insha Allah marka inta marka imaado qoraalkan aan qorto hadana qoraalka aan ka sii dabageeyo qoraalka iska qor ma ahan Soomaaliga waa in aad xaraf u qortaa tusaale hada laakiin
hadaynu Soomaali waxaan isticmaalaa soo gaabsanaa waxaan qornaa LKN oo kaliya kaamiyela isaga waa ina LAAKIN qortaa hal xarf inaan ka tagin dabcan waxaa jirto waxyaalo Ingiriisi ah oo luqadeena ku jiro hada hadii aan rabo kale sida online lacag looga sameeyo sida markaa qorto online Ingiriisi ay ma qoraysid waa ina online Soomaali qortaa ONILAAEN ina qortaa waa hadii aad rabto subscribe ina qorto qaab Ingiriisi u qoran waa ina SA ka bilowdaa meesha subscribe Ingiriisi ay ka tahay SU dabcan wax kasto oo inta ku qoraysid waa ina Soomaali aan hadii kale si qaldan oo kaga akhrinaya number 1 hadii ina elephant tarjina marka hadaba qoraalkii diyaarsatay Soomaaliya dooratay female iyo male mid ka rabta dooratay ama nin iyo naag qofkii ku hadli lahaa soo dooratay waxa kaliya ka dhimnaa waxay tahay inaad save garaysato hadaba si aad u save garaysato waxaad u baahan tahay inaad taabato create video dabcan hadda waxaan lahayn muuqaalkan wuu dheer yahay waxaan kuugu sameyn doonaa 6 credit halkii aan 20 ka haysanay waxa inoo soo haraysa 14 hadii aad ku qanacdo waxa sameyn kartaa generate hadii aadan doonaynin cancel dabcan waxaad leedahay generate aan hadda waxaan maraa laakiin aadan tusaale ku siinaya qaabka markaas oo taleefankaaga uu kugu tii karo waxaan maraynaa gabagabadii part 2 part 1 waan isla soo sameynay part 2 Soomaalidu inta yaqiineen waan sameynay marka dadku inta yaqiineen hadii aad sameyso wax micna ma lahan laakiin waxa wanaagsan dadku wixii san aqoon in la imaado aniga ku baraa insha Allah طبعا لaba option oo mara laba marxad marxalada ku saan u wareegsanaya create ku dhuwa wala sameeyna waa video-gaaga oo codkiisa la saaro qofka marka la saaro email-kaaga wuxuu kugu soo diri doonaa fariin number 2 meeshan calaamad tig camal ku soo saarmi doonto طبعا muuqaalkan oo iradheeda maleena la waxa sameyn doonaa marka idis garanaa jari doona insha Allah amaba waxaan sameynaynaa inta uu wareegsanayo oo generating oo ku jiro waxaynu baran doonaa sida markaas isla application kan gudihiisa isla website kan gudihiisa inaad bot soo u darsato oo ku keeno waxa jirto bot kale oo la yiraahdo Discord طبعا inta uu jira sa u jeedo kan waa yani aad buu u dhibadan yahay waa in muuqaal dheer laga soo sameeyaa waa in markaas yani botka markaas sameysto waxyaalaha laga baahan yahay buuxisaa waa in bot yani la xiriirta botkaas doo ku soo aqbal waa ana kidib sawir ka raaysa kan harta hal muuqaalo dhowr daqiiqo soo aan kala soo duubi doona insha Allah laakiin waxa inta ku tusi doona bot kale oo isla website kan dadka ay sun garaneen ayaan ku tusi doona insha Allah inta ayaan ka soo tusi doona dabcan kan hada ku sii faahfaahiyo kan sa u jeedo sawirro waxa laga helaa quality leh ana sawirrada dhammaan aan isticmaalay ama short ha noqoto ama wax kale ha noqoto waxaan ka helaa inta waana sawirro markaas shakhsi bili aadan caadi ma lasaa misleed waxana computer ah طبعا sa u jeedo hadda kuwan wax jira ma ahan hamar tusaale hada ku sii fiiriya botka sawir u dir hada waxa leeyahay only عفوا calaamadan ay leedahay inta aan taaban doonaa kadibna waxaan ka sii taaban doonaa imagine kadibna waxaan taaban doonaa waxaan qori doonaa wax marka arab adirsanayna only man full body nin duq ah oo markaas dhameystiran jirkiisa يعني marka dhameystiran aan ku leeyahay asi dhanba ka wado boodka marka qaar waxa laga qof illa ama qof tin lahayn ama qof wax qaldi inuu ku siiyo hatta waji kaliis ah la waji dhameystiran ahaada ka wada dabcan full body dabcan inta markaas inta la fiiriya isaga isoo raadin doono marka hadhow oo soo laabo doona hadda waxa ku sii doona dabcan qaybtan ku sii doonada wali generator uu haya dabcan hadda soo jeedo waa sameysmay intan calaamada soo fuushay ku qoranta successful generated kadib meeshaan taaba doontaa hadda muuqaalkan waa 1 daqiiqo iyo 20 second marka meeshaan markaas video markaas kor imaado saddex dhibac taaba doontaa kadib waxa dhinta download kaliya wuxuu ku tiri doonaa taleefankaaga ama computerkaaga hadda anina download galay marabo computerka noo taga marabo laakiin adi waxa taaba doontaa download kadibna computerkaaga ama taleefankaaga ayuu ku tiri doonaa laba part waan ka soo dhamaanay marka the last partigaas oo ah markaas yani afwan meeshan qaqoa ka yiriso partigaas oo ah marka in sawirra aan sameeysan anaka dadka la yimid kan waa lagu daalay waa lagu fashilmay intaas qof soo gelisay marabno waa ina wax cusub ala imaana hadaba marka si aan u la imaano
boodkan dabcan insha Allah muuqaal ayaan kaaga soo sameyn doonaa sawirada aad keenayso wallahi sawirada inta lagu soo koobi karo maahan qof hore kuu sheegay markiis sawiradan hadda waa laga dhigi kartaa oo yani ana hadda shalay miyaa weydiiyay shalay 10 saac weydiiyay fiidiya waxaan dhahay beautiful girl full body yani marka gabar qurux badan oo jirkeeda dhameystiran yahay marka dan nur yani magaciiga wata saa u jeedo fasti wuu soo helay waxayna ahayd 10 saac iyo 43 daqiiqo oo am yani saaki saacad oo xilligeeda camal 10 saac 43 qofkii yani Soomaaliga fahmi karo marka wuu soo helay hadda marka soo galo marka kor isoo saaray waxyaalahan dad weydiiyeen dabcan saa u jeedo aan waxa weydiiyay hadda waa old man weydiiyay wuu soo raadinaa sawiro qof duq ah markaas oo dhameystiran markuu soo helana isaga qaybaha kor isoo saari doono dabcan intan ka gaaro oo raadi karne waan sii raadinayaa inaan helo ayaa laga yaabaa dabcan halaha sawiro markaas ana isticmaalo inta ayaan ka sameeyaa dabcan marka muuqaal faahfaahsan sida loo sameesto wallahi processkiisu adag yahay qof hore u isticmaalaan inuu ku tuso lama ahan laakiin ana ka dabagii doona insha Allah kaliya ma ahan ina ay isticmaasho sawiro badan ay keli kartaa wax harta u isticmaali kartaa ma fahanteen ana video dhameystiran kaaga soo duubi doona insha Allah waa hadii aad rabto qof Allah qofkii raba in boodkan si loo sameesto si free ah bila lacag ah loola mutacaamulo sawirada loogu diro hadoo ku keenay si loo degsado dhammaan qofkii raba in tutorialkaas uu ka faa'iido commentiga ha ugu reebo dabcan qof dhalinta waxay rabaan hadii aad soo gudbiso micno ma laakiin waxa wanaagsan wax dhalinta ay rabto inaad soo gudbiso hadaba marka hadii aad rabto boodkan aan la macaamulo qaabka ula mutacaamuleed commentiga ay ugu reeb dad min saddeesan dad badan ee la soo hadleen ama commentiga aysan igu soo reebin qof marka daneynaa ma jiro oo aan waqti kuma bixinayo oo waxaan sii wadaneynaa casharadani SEO-ga laakiin hadii asxaab badan ay la soo hadlaan ee commentiga igu reebaan in markaas boodkan video aan ugu soo sameeyo insha Allah waan ka sameyn doonaa hadaba marka boodkan meeshiis inoogu daa dabcan marka waxa jirto hadana labada baart maadaama aan soo baranay waxaan ku tusi doonaa isla website-ka dhaxiisa sida markaas sawirka aad u sameysato dabcan marka dashboard-kan aad taagan tahay waxaad dhigi doontaa create video marka dhacdo hadda wuxuu taagan yahay juice presenter yani qofka ku hadlaya dooro oo qodaan mugtay ina inta taabato waa mid oo sawir aad soo gashato sawira markaas boodka aan ku sheegi doono ama muuqaal aan ka soo sameyn doono hadii aad soo codsato boodka sawirka kala soo degto inta soo gashato sawirka waxa looga baahan yahay inuu marka shuruudaha oo dhameystiro dabcan soo jeedo mujda waxyaalaha tagtala saaran waa laga rabaa okay marka soco waxa taaba doontaa meesha ay ku qoran tahay generate AI adiga samee sawir adiga gacantaada ku samee ama markaas dalbo meesha marka taabato inta waxa kugu soo gudmi doona qoraal click here loo dhahay for inspiration for describe the present yani meeshan taabo oo qeex sawirka nooca aad ugu keenay dabcan hada intaana ku jirto intaana ma nuurayaan marka meeshan taabo doontaa meesha marka taabato kadibna soo ku amaada kan wuxuu dhahay full banner portrait waxyaalahaas oo qoray ana marka waxa qori doona fiiriya full body aqbal awarto full body waa iska soo gaabsanaa kullu dooqa aad taqaanid ana waxa leeyahay full body beautiful girl inta markaas sameeyo waxaan dhigi doonaa enter afan generate marka dhado meeshan wuxuu inuu ku soo saaraa rabaa sawir markaas yani ka hadlayo girl mararka qaar waxa laga yaabaa sawiro daalan ama sawiro oo markaas hor amal ku soo saaro boodkan yani active ma aha markaas wax oo high quality laga helayo lama ahan aniga waxa ka wanaagsan kan kale insha Allah beautiful girl and full body waxa isoo saar fiiri kan basoo isoo saaray kuwan kale cancel uga saaray ma isticmaal karto lama jido because sawirana face line lama ogolo adiga kan face kiisu qarsan kana face kiisu qarsan kana boodreeda saaran dabcan hadaartu waxaad dhigi kartaa generate mar labaad oo ku celi kartaa hadda 15 mar la ogolay hal mar isticmaal ma jida hadii marka la sawiro isoo saar inta waxay noqonaysaa 2 dabcan soo jeedo waxaan soo saaray haddana waxa ku tijaabi doonaa meeshan beautiful girl waxa ka dhigi doonaa afan meeshan waxa dhigi doonaa full body old man xitaa hal u door kartaa waxa dhigi kartaa qof cad shaati madow wata timihiisu ay cad yihiin indhihiisa saas ay yihiin oo garle shaarib leh sida u dalbato lagu soo saaraan faantiin marka adiga kulli dooqa aad taqaanid marka qofku ku hadlaayo xitaa hadaa arto qof markaas xijaab xiran waa dhigi kartaa oo muslina hadaba marka ina isla hana rajina waxa kale oo kugu diri doonaa fiidiyogan maadaama laba baarta aan ku soo baray baartii saddexaad hadda aan ku tuso sida sawirada loo sameeyo dabcan hadda waa kana old man soo ujeedo you see soo ujeedo mid ka arta ay door doonta kadibna inta qoraal ku qori doonta waa ka heshiid doonta
haddaba marka saddexda baartisaana kugu baray waa part 1 sida loo sameeyo application kan ama website kan part 2 sida sawirada dadka ay yaqaaniin ay ku daaleen sida yani ayagana aqoontaada ugu sameyso wax micna soo ma kordhinayso wixii dadka la yimid in la imaado you have to change your idea waa inaad bedeshaa fikradaada wixii dadka la imaadeen wax ka duwan la imaadaa si markaas sawir ka duwan u abuurato waan ku baray waxaa jirto qaab ka professionalisan oo hore aan kugu sheegay oo podcast ah hadii aad rabto saaxiib fadlan commentiga igu reeb hadii markaas commentiga aad igu reebtaan waa idin soo sameyn doonaa hadii aysan igu reebinina hore ayaan u socon doonaa insha Allah waxaan soo geli doonaa muuqaalkeena aan wada sugeynay ee ahaa SEO qaasatan magaciisa la website-kaas Tumblr insha Allah muuqaal dhameystiran ayaan idin kaga soo diyaari doonaa marka qaab yar aan ku sii doonaa iyadana dadka ay ka qariyeen oo waliga aadan arkin qaabkaas codka yani codkan waxa laga yaabaa qana codka meesha aan ku sameynayso inuu daciif yahay waana sax daciif waay laakiin hadii aad rabto maqaal yar oo Ingiriis aan diyaariso dabcan aan hadda shal waxaan diyaariyay meesha markaas la soo eegno shalan waxaan diyaariyay muuqaalkan marka sida diyaariyay hadda muuqaalka aan duubayo inta uu san bilaaban hordhac ayaan ugu dhigi doonaa waa 29 second ila dhageyso. Dear viewers and subscribers, welcome to our YouTube channel Somali Tutorials. We are thrilled to have you here and we can't wait to share our content with you. Our channel is all about making money online, earnings tutorials, learn skills, web developer. Make sure to hit the subscribe button and turn on notifications so you never miss a new video. Thank you for being a part of our community, and we hope you enjoy our content. Leave your idea for comment below. Regard, Somali Tutorials. Saacad marka inta inaad sameysadii doonayso welcome aan ku leeyahay commenti uu ku furan yahay marka insha Allah kuma sii dheeranayo muuqaalka waxaan ku tusi doonaa qaabka codkan aad u balaaran loo sameeyo marka hadii aad rabto English waay ma fahanteen marka waxaad tigi doontaa marka hore waxaad sameysan doontaa qoraal soo diyaarsan doontaa qoraalka soo diyaarsan ChatGPT kaaga filan oo markaas wax walba si degdeg leh kugu sameeyo doona insha Allah kaliya ChatGPT na muuqaalan ka soo sameeyay waa jiraan playlist aan kugu soo tusay kaliya VPN noocan iska isticmaal VPN ka xiriirso VPN marka xiriirsato hadda baan soo jeedo VPN kan ana intii saaran waa midka aan idin baray muuqaalka aan ku baray laba muuqaal laba VPN aan ku baray VPN ka koowaad wuxuu ahaa telephone VPN ka labaadna waa kana dabcan hadda waa sameeyay soo jeedo VPN kan waa yani waa i xiriirsan markuu calaamad cagaar oo ku soo qabto inta ima waxa ku qortaa ChatGPT marka qorto linki u hore ku dhufo linki hore marka ku dhufato dhalintu meeshaan ku wareeran waxa leedahay try ChatGPT dabcan kaliya browserka oo jagreynaya kadibna gudaha ku geli doona kulli haduu aad saas ku soo qaban wax badan ka qaldan marka wuxuu leeyahay verify you are human verify garay ina bili aadan tahay ama human tahay dabcan robot ku diidan yahay dabcan hadda gudaha isu galiye oo reed waa sameystay marka kaliya waxa leeyahay generate ama right mid hore doontaa isticmaali kartaa generate and welcome YouTube welcome message inta marka qoro waxa dhigi doona send waxaan dhaay qoro yani fi qoraal yar oo soo dhaweyn ah oo markaas yani qofku markuu YouTube oo bilaabayo waxa la rabaa qofka yani YouTube kan ku soo dhawo waxyaalaha soo gudbinaa ina qofka dhahdo marka hada qoraalka wax yar u diyaariyay aan tusaale yar ku siyaarwa marka qoraalka markuu soo soo qoro kadib hadaarad meelahan YouTube awarjana marka magacaaga geli kartaa midda magacaaga geli kartaa marka inta markuu ku saan ku siiyo waxa dhigi doontaa copy marka sida u dhahdo kadib waxa ku soo laaban doontaa kan ku soo laaban doontaa kan marka si aan kugu sharxo waa ina kansala mar labaad aan soo galaa plus aan dooro doonaa kadibna magacaana soo qori doontaa ay ku qoran tahay 11 labs daacada ujeedo magaciisa waa kana soo dhameystiranta ujeedo waxaana la dhahaa Prime Voice AI waa computer markaas codka yani codka ku sameeynaa waa laakiin English Soomaali kuma jiro meeshan hadii aad rabto maqaal English ama video English inaad duubto kana isticmaal doontaa waliba cod quality leh ku saar doona insha Allah soo marka waa linkiyan dabcan ina isha ka buuxsatay aragta rajana ama meel ku qoratay waa fur doontaa marka furto diiwaan English iyo waxaas u baahan tahay fahanti diiwaan English waxaas u baahanid kaliya inta ku soo bixi doonto hadii aysan ku soo bixinne meeshaan daawa doontaa speech ay ku qoran tahay dabcan meeshaan hadda Somali Tutorial congratulations 500 subscribers happy celebration waa cunug Ingiriiska oo shorts ku muuqaal ku hore ka hadlayo qoraalka ana ku sameeyay kana ku sameeyay dabcan soo jeed marka meeshaan waxa ku baas garan doontaa qoraalka soo qaatay ChatGPT ka soo qaaday kadibna codkan ay kala dooran doontaa kan waa soo jeedo dhigeyso If you do what you've always done, you'll get what you've always gotten.
you see cod kan kala Not what nooc we have, but what we enjoy constitutes our abundance. kana I'm not sida interested in age. People who tell me You cannot find yourself by going into the You cannot find yourself by going into the past. You can find yourself by coming into the dabcan present. naagtaan aad dooranayna haddaa mogtay muuqaalka hore waxa ku sameynin kan marka naagta markaad saan u doorato afwan naagta watana kama mujida You cannot find yourself by kana going taabanaysaa into the marka qoraalkan past. meeshan dheer You can find taabanaysaa yourself by coming mujida into the doomi present. alla kore kuu soo fushay marka kore kuu soo fushay waxaa dhihi doontaa generate generate ku haya ama markaas uu raadinaya markuu dhameeyo inta sakinay tahay fiidiyogaas ama inta daqiiqo yahay iyo codki waxaan ka heli doonaa qaybtan hoose dabcan waxaan rajeynayaa muuqaalkan inaan waxna aanan ka hakranin oo aan ka dabageeyay Welcome to our YouTube channel. We're excited to have you here and can't wait to share our content with you. Our channel is all about insert content theme, and we strive to provide informative, entertaining, and valuable videos that you'll love. If you're new here, we encourage you to subscribe to our channel and turn on notifications so you never miss an upload. And if you enjoy our content, please give our videos a thumbs up and share them with your friends. We love hearing from our viewers, so don't hesitate to leave a comment and let us know what you think. Your feedback helps us improve our content and create more videos that you'll enjoy. Thank you for choosing to spend your time with us. We hope you find our channel valuable, and we look forward to seeing you in the comments. saaxiib marka u jidaa waxa ku bar si loo sameesto si sawirada loo sameeyo si sawir aad gacantaada ugu soo sameysato si markaas cod professional ah u hesho dabcan marka application marka ama website-kan waxa ku furan inaad ChatGPT isticmaasho cod qoraal aad soo diyaarsato iyo in markaas qoraalka ChatGPT uu ku diyaariyo wax yar aad ka bedesho magacaaga aad ku soo kordhiso iyo in markaas adiga gacantaada Ingiriis aad ku qorato qof professional aad tahay oo markaas markaas aad isqeexdo describe aad ku sameyso marka inaan si step by step aan kaaga dabageeyay waxna aanan ka hagranin oo wax walba oo markaas sawiradan laga hadashiinayo ku saabsanaa inaad ka dharagtay ayaan rajeynayaa hal muuqaal idin haray haddii aad rataan idinkeedu ku xiran tahay dhowr qofood haddii ay soo qorto noo soo sameey waa idin soo sameyn doonaa laakiin haddii cidna ii soo qorin soo ma sameyn doono oo waxaan ku sii socon doonaa SEO traffic source ama search engine optimization ugu dambeyn finally saaxiib channelkan haddii aad subscribe ugu saaran yahay maasanta haddii uu ku saarnayna waxaan ku leeyahay nagu soo bir oo nala saaxiib oo channelka subscribe inoo saar sidoo kalena muuqaalka inoo la galay si uu asxaab badan u gaaro channelkan inta awood u share garay inta tabartaada 1 iyo 2 5 boqol kun inta awoodo waa maasantiin tan iyo muuqaalka xiga sida ay nabadgeliyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh